soo dhaqsada yar baan rabaa inaan ka dabageeyo waqti yar baan hayaa shaarta ku qabta durba aan boobsiye shaqan galaya insha Allah aan boobsiye waxa noo boobsiye شهر قرية بالك شهر تقوقبت قعنتها إلى هي ذن كوة هي شهر تقوقبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت دعوانا سيء أنت ديبك دعوانا سواء نقصان هيا وقت بدل ما هي حرب أنا لي أريد كده بجي تركي دباد خاص وهوس يسان قرش شديدنا ملات كيف كريسان لما قلب ما ربعنا الدفاسيو dadka Afrika jooga waxay aaminsan yihiin baa qofka haduu Facebook soo galo qof waa la nuuyahay which is kind of ignorant waa kind of rebaadiyanimo weey oo jahilnimo adduunkan kada hadaad ka wareysaan iyo hadii kalaba media laga xukumaa qaniga ko iyo labaatanaad adduunku media ku shaqeeyaa media qofkaas kaga celi wada iska celinaysid tolkayna waxaan ka kadlahay media ku dagaalama aniga waxay arkaan qof waalan laakiin horey baan u sheegay waxaa idhi tolkay 500 oo sano oo yaan ka sii horeeyaa oo ina gaadhin boqolkiiba 99 waxaad aaminsantiin media iyo Facebook in laga hadlay inay waalitahay qof waalan oo callada dhigtay waad aaminsantiin laakiin kind of waxa weeye jaahilnimo ah oo dhagaxidna ah weeye arrin baa yar baan rabaa inaan ka dabageeyo wadankan hadda aan joogay Mareykanka qofka 24 saac 500 oo ku gaari wata guri oo wata gaari 100 kun wata shaqo aroortu ka lahayaa soo sakaradan habeenkii way imanaya wax yar intuu qabaystay uu media fiirinaya telefishinkaas laga xukumaa wuxuu telefishinka ku arko ku dhaqmaya caalamku saas u dhaqmaa waxa laga sheegay media iyo teknoolajiyada saas adduunka lagu hogaamiya inta inaad fahantaan oo ilaahay idin faasiyo aan khayr ogaada iyo shacbigayga ilaahay idin tuso taan ka gudbo dad badan oo idinka mid ah waxaad ku mashquulsheen oo waqti badan geliseen waxaan idin arkaa Facebook aan wax yar fiirinayay markaad Facebook fiirsay waxaad arkaysaa dadkaygu sida uu hooseeyo iyo meesha uu taagan yahay toor baa la bedelay hebel baa la gay hebel guul laakiin isbaada weydiinin waxa dhacaya laba socotid adigu ana ka daba geynaya balfaan taariikhda intii lagu noolaa ma uu kala bedeliyo booliis laakiin lama uu kala bedelin lacag maxaa kana ana ku sheegaya dhagahaaga fur haddii ilaahay aqli ku siiyay ama damiir aad leedahay iyo garasho dhagahaaga fur saaxib ina agjar waxaan isla qirsanahay boqolkiiba boqol shacbiga reer ogaadaya dhibaato inuu dadka ku yahay mid uu xidho shalay kuwa oo nala fuxilxidhay qof jaahila oo majnuun ah oo dhaga xidhan oo shaqo la siiyey oo awood la siiyey way jaajusnimadana isir buu u leeyahay isir faca buu u leeyahay baashu bahalada bilaabatay maaha isirkii awowaa iyo isinji waa maguuraan meesha aad gasho waliga ayaa la kama awowaa wuxuu ahaan jiray baahanaysa caaqil hadduu ku dhalay culimo haddii ku dhashay sheekh hadduu ku dhalay shariif hadduu ku dhalay doqon hadduu ku dhalay fariid hadduu ku dhalay waxa aabbaha iyo awowaa isirka aad ahaan jirtay baahanaysa ina agjar iyo meesha uu ka soo jeedaa anigu gaari maayo waalidkii laakiin taariikhda waxaan u malaynayaa shacbiga reer ogaadaya inay ka dheersan yihiin haddii aad og tahay liyu booliska waan tirtirahayaa inuu ku faanahayay saddex qodob baan rabaa inaan ku faasiyo dhagahaaga fur haddii aad wax fahmayso oodan majnuun ahayn fur dhagahaaga ciidanka liyu booliska iyo dagaalka la geliyey iyo dagaalka maalin walba la gelinayo waa talagal in ay dhammaadaan loogu talagalay oo qorsho dagaal bilaa macnaa maalin walba inuu galo oo qorsho weeye ciidankii uu ka dhagay lama dhihi karo waa ciidan awood leh Ethiopia abi iyo ninka la yiraahdo in agjar go'aanka ay gaareen waxa liyu booliska la tirtiro ma ka waraysa magaalada Barqod in lagu tababaraya ciidan lagu talagalay in ay wadanka nabadgelyadiisa sugaan marka liyu booliska la dhameeyo saaka maxaa kan loo liyu boolis wax yar koofiyad duubay ahaan jireen reer hebel koofiyad duubay ahaan jireen oo liyu boolisku koofiyad duubtu ahaa haddana iyaga ah in agjar baa la taagan aduna waxaad leedahay ciidan baa la kala bedelayaa iyo hebel baa la hadhay مسكانيسا kind of foolish
ومسكع فلوق نموي يا بني آدم باطي ضمير بايلاي كسي أغلب بايلاي كسي use your mind وأنا مسكع لا سماش ciidanka dagaalka la geliyay ina cagtar horeyna waan idinku sheegay dagaalka maalin ku dhacay baan idin sheegay dagaalka danta laga leeyahay dagaalka ina cagtar qayb buu ka yahay ciidanka liyu booliskana ku dhamaadana waa loogu talgalay kuwii u caydiyay maalinkii meesha yimid ee qabiil ahaan uga qaaday isagoo maxamed subeer weliba ogaadeen marka la tagay si kala saaraya yusaaka baaray oo uu yidhi dagaalka ha galeen oo uu kaxeeyey iyagoo intaa buul ahaa 5 sanaad buul ahayd aabbaha lacanaab iyo majnuun ku dhalay oo xilkii laga qaaday oo lagu yidhi shaqo ma qaban kartid waxaa uu waabaa jaajo saacadiina baad la shaqayn jirtay saakana inta lagu kaxaysay baa jiikida hore lagu geeyey waadna ku soo dhimatay which kind of animal xawayaan baa tahay matid bini aadam matid suuradiisi baad leedahay laakiin bini aadam matid nin adiga ku dilahaya adiga ku tirtirahaya adiga dagaal kugula jira hadalkiisa inaad maqasho maxay macna ku samaynaysaa yaa ii sheeg adugu ina cagtar dagaal ka dhacay qayb buu ka ahaa gabdhaha gabadha rajadaabaa ugu cawra xun Soomaali maqli jirin Soomaali maqli jirin ciidanka liyu booliska waa la tirtiraya waana go'aanka Ethiopia axmaarana ay ku hadlaysay isaguna ku hadlayo kuwii dhaawac ah ee jigjiga iyo qabridahan iyo magaalada goday yaalay ee la keenay oo ku soo dhaawacmay dagaalka ka waraysa xiriir u galay oo hal daawac xitaa la siinin oo reeroodii mid walba uu leeyahay dawladdan ka cabsanaynaa دولة واحدة إلى ما ترتاد مع الله إذن ضليع عروتي من الأرض الجيست نور عمر بولشيت باتينيو لانجويج كاستمالي سوا بولشيت يا شوني جيها أبو ما نادي كنتها نيجا عارقة أنا سحر مي مركز لا شوني جيها واسكتينيسا إنتان دايون عاود دايان برينو جيان أديك يهوي هذا بقراعي نيجا عارقة بولشيت باتينيو نعنا هؤلاء من اليوم استبدلنا ماذا هؤلاء من ذاتك بريس انت هذا بعض فيري إنا عجر قبل رجاوة قبلها ويكعور حنتها ويا يعني عيدك اليوبرسكي ذاتك الصومالي السجع دجالك اللي جريء عيدك كسوات التربال يجري دجالك مركو جريء السجع بالجودة جيه بدلات ساكن عيدك الواش معاه كان مرك واحد كان مكور هيسا waxaa keenay isaga hal sano ka hor bay axmaaradu waxay lahayd magaalada jigjiga waxaa jooga saraakiil liyu boolis waxaa jooga saraakiil ah al-shabaab ya 2 sano ka hor hal sano ka hor bay axmaaradu soo lahayd saaka ma ka waraysaa jarati maamulkii dhannaa ee jiray libankii la qabtay liyu booliska inay sheegaan oo ay dhahaan raggan nala shaqayn jiray oo hubkii hal masaajid 104 laga soo saaray ma ka waraysaa dawlad baa nahay waxaan nahay isagu hilibkana aad buu cunaa iyo inta la joogta hilibka aad baa loo cunaa madax baa nahayna waa la dhahaa jigjeera waa lagu qayilaa hoggaan nabadgeliyo ku leeyahay muxuu qabtaa hoggaanka nabadgeliyada muxuu qabtaa kind of bullshit weeye muxuu qabtaa turtuur jigjigaa lagu qayilaa waa la soo yaacaa madaxweynahana waa la isdhahaa intaa wax dhaafsan miyaa jira ya cunto nin ka fikiraya miyaa rag iska celiya maya no way ya dawladda sirdoon bay leedahay ciidan bay leedahay baajad bay leedahay dhaqaalay leedahay security bay leedahay away xagee aadeen ya xagee aadeen waa la qayilaa jigjiga lacagaha dadkana waa la cunaa waxaan idiin sheegayaa oo kale weliba ina cagtar wuxuu diyaarsanayaa meeshii uu ku carari lahaa maalinka halka laga qaado gabadh caabudaa quguursanayaa oo baarlamaanka Kenya ku jirta arrintaana waa siraan idiin sheegay anigu waxa ma qariyo ha ma sartay naagtiisu hadii doonay ha waalato ya nafti halkaas geesiru fuliyayna waa naqaanaa si hadhow uu ku dhunto ya gabadh caabudaa baarlamaanka ku soo baxday Kenya iyo waan guursanayaa leeyahay anigu waxa ma qariyo haan may hadan wixii qalbigayga yimaada iyo calooshayda waa sii daaya ya sababta keentay waxba la kala bedelayaa saaka oo ciidan baa la kala bedelayaa maxaa keenay waxa weeye waa lagu dhagan yahay kilalkii baa la galay al-shabaab inay wada yihiin baa la ogaaday Ethiopia sirdoonkeedi baa soo cadeeyay ku haystay yaa waxa fooda loo saarayaa ciidamadii baa bedelay leen isaga lagu dhagan yahay because waxa weeye maskiin ma miska la fuulo leh
تور يكون نيو بوليس كاي سراكيشي وان كلا بدلي يا وانت اذن كلا واد فرحسنتين اول بالا بدلي ولا ما دي تورنا لا دافي عقليين انه هدا فعلوشا يا انت ku garaa Allah noqonina aqli ku garaa Allah noqda waxa lagu wajahayaa culayska siyaasadeed ee saaran ee loo haysta guuldaradii al-shabaabki isagu ka dambeeyay baafooda waxa loo saarayaa wiilashayanka liyu booliska ya inta aqligaagu ma ku siiyay hadduu ku siini boolish baa tahay wax markaad aragto you have to waa inaad ku laabato maskaxdaada waa inaad faaqido waa inaad ahdo waxaan muxuu ku dhacay maxaa danta laga leeyahay maxay tahay ma waxaad aaminsan tahay inaa cagtir nabadgelyo degaan iyo liyu boolis dantooda inuu kala bedelayo maya isagaa waan tirtiri la taagan kuloo dagaalamaya oo dagaalka geynaya magaalooyinkii gobolka ka mid ahaa baa canfar qabsatay waa kii caanaha geela dhasiinayay ya markaasaad aniga waxaad iga dhaadhicinaysaa inaa cagtar madaxweyneheenna taariikhda intaan ku noolahay adduunka intuu ku nool yahay wax madaxweyne ba hadii la waayo anuu inaa cagtar madaxweyne dhihi maayo umana aqoonsani waa kandi oo waxa weeye oo idiot away أنا كل شيء هي يا وقف وارن أو دكتور باهن يا دبرني دبر قال دم بمريم مقش أنا كل شيء هي ويلا شيء ينكاي مساكين تا يا لتشاهين يا دك لتشاهين هي وحان رباينو يتوبي كل ضوضة أنيقا وان كلا بدل سراكيش يقول درا كنتي ما انت كده انت ما فهمت هذا لا فهم انا معاك كل شيء مرك يا وانت كده سراكيل ليو بوليس بلا ربين عيدا بلا ربين نبدقريا لا ربين انت اوردنا ساكا دبي سراكيش مستوقيها هي شرعيه laga soo wada saaray oo dhan isaga amarkiisa bixiye iyo wasiiradiisa bullshit baata markaas waxa ay sheegay saariga nabadgeliya raadinaya ujeedadiisu marka maxay tahay horaana kugu sheegay qabiilka ogaadeen la yiraahdo in cagta dagaal buu kula jiraa ama iskala reeba ama Cabdilla dhaha ama Maxamed Subeer dhaha ama Reebal dhaha kulligii sababtiin aqli wadu idin shaqeynayo dagaal buu ku jiraa al-shabaab inuu soo galiyo oo ay jubbooyinka oo kala noqoto iyo muqdisho oo ogaadeen noqoto qorshiisu waa inta idinka hal baan idin leeyahay marka dhulka idinka leh wax dawladda sugtaan ma jiro dhulkina difaac sidaad isku raacdeen waa idinka mahad celinaya laakiin